السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواad channelkeena markale anigoo ah Faadumo maanta waxaan rabnaa inaan sameeyo mise waxaan rabaa inaan sameeyo insha Allah vlog oo ku saabsan habeenkii hadda waxay noo tahay already 5 o'clock ay noo tahay ilmaha banaanka ay joogaan ninkeyga dabka iskaaga ciyaarooyn ana hadda dhawaan suuqa ka imaaday I'm like really tired waan daalanahay maanta dhan suuqa ku maqnaa adeeg iyo shopping iyo waxaas iskaaga maqnaa hadda imaaday haddana waxaan u sameynayaa hamburger cashada insha Allah kadibna waa idin tuseynaa routiinkan habeenkii waxaan sameynaa so stay tuned haddana waa kana meesha ilmaha waxa uu soo sameeyay hamburger seasoning la ku dar wax alla waxa jeceshaa ku darsan kartaa guriga waa uu sameysan kartaa insha Allah u duduwayaa haddana waxaan rabaa inaan sameeyo french fries ay jecelihiin meeg inaan u sameeyo bahalkaan soo gaday waxaan ka soo gaday korokorka miyaa ma xasuusta meelahan ka soo gaday laakiin kasta uu iska adag yahay wuu dhib badan yahay xoog u baahan yahay usually ninkeyga sameeyo ninkeyga hadda available ma ahayn ilmuhu banaanka kula maqnaay so waa jeclahay inaan u sameeyo ilmaha waxyaalaha oo frieska iyo chickenki waan isku dayaa inaan guriga ku dhex sameeyo because waxa waaye banaanka wax laga soo gado maba ku dhargaayaanba ilaahay amarkiisa marka aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabteeda inta oo youtube-kayga ku xiran aad iyo aad u mahadsantihiin mar walba aan arka maasha Allah inaad oo fiirsateen waan ku farxaa aad iyo aad aan ugu farxaa bahalkan uu dhib badan yahay soo dhib waa mujadin dhib iyo rafaad aan ku sameeyay bal alxamdulillah mar hadda arag laba gacan aan ku riixayaa xoog u baahan yahay maasha Allah markii frieska saas ay jecelihiin inaan ugu sameeyo easy waaye bahalka kastoo iska dhib badan yahay moogay laakiin easy waaye hadda waa kana frieski saas oo ekaad maasha Allah si toosan oo kuugu jarjaraa inkastoo iska dhib badan yahay bahalkan saas oo yaalaa inaan idin tusaan rabay marka waa kana hadda frieski waan qabanaya insha Allah waan dhaqay already hadayaan soo dhaqay intaan jarjarinaan dhaqay waxaan jeclahay bahalkan oo sacfaraanka camal ah inaan ku darsado bahalkii hadda raadinayaa so waa kana bahalkan sacfaraanka camal Walmart aan kasoo gaday dhinaca oo alaabta oo cuntada Mexicaanka iyo waxaas uu yaala saas uu eg yahay kaas leen ku daraa wax kale kuma daraayo because geedkaas wuxuu leeyahay cusbo frieskan colorkan uu ka bedelayaa ma fahmay marka hadda waa isku qasaya insha Allah air fry kan ku jeclahay inaan ku sameeyo saliid sometimes oo ugu sameeyaa saliid waan ku duwaa markii bariis iyo waxaas aan karsano ma aragteen saliid aan ku duwaa hal xab fries waan dhulku ku dhacay laakiin markaan af sameynayo fries ahaan markaan uu sameynayo air fry tala iska kariya because air fry ma u baahna saliid ma u baahna saas markaa isku qaso waxa dhan hal mar aan ku gadinaya air fryer dad qaarkiis waa iska kululeeyaan laakiin anima waa kululeey waan daaraa sida u jeedin hadda wuxuu dhahay 360 air fryer yaasha different waa mid walba noocu asagu ku sheegaya marka waa kana air fryer hal mar aan ku wada gadinaa waan u daaraa waan ka tagayaa asaa tartiibkiis marka iskarinaayo maasha Allah walba adduunkan easy ilaahay noogu dhigay alxamdulillah ilaahan ku mahadineynaa waan u daaraa 17 minutes oo dhahay laakiin 17 minutes ka badan aan kariyay almost waxaan kariyay 21 daqiiqo camal waan kariyay oo soo noqday marka uday soo noqday sidii ma ahayn marka waa kaasa fries hadda inta ku dhaafa insha Allah ilmaha u tagaa banaanka joogaan waxaa la dhahay labo oo waxa isku imaaday Jupiter ma aqaani magacooda ila yaabina labada isku imaaday planning waa kaasa mujeedin si fiican ma loo arkaayo laakiin ilaa iyo labo bari banaanka maasha Allah arkayna subhanallah ilaahay awoodiisa laakiin dadka haystaan telescope mise camera fiican haystaan si fiican ay u arkaan picture yaal fiican aan ka arkay social media gabadheeda waa kaas way raadinaysaa qashinkeena waa ilowna shalay meedara inaan banaanka dhigin weli ma la qaadin laakiin bariya imaanayaan hadduu ilaahay yiraahdo biyaa banaanka iskaaga baashaaleen ilmaha banaanka aad u jecelihiin maalmihii qabowga uu jirin waa isku dayaa inaan aga faa'iideeyo Cabdullaahi waa kaas Safiyana waa taas mugdi waa banaanka wax si fiican looma arkaayo marka hadda waxaan isku dayaa inaan oo u sameeyo ujeeda dabaan gadaalka daaran inkastoo si fiican loo arkeen banaanka dhan mugdi ay tahay laakiin wallahi dabka beel agtiisa la iska fadhiisanaa qabow ku haytaa uu ka tagaa bastooyina iska qaadano waa jecelnaa isbuuc hal mar sas inaan sameyno hadda hamburgerkii banaanka ugu duduway ilmaha waa u soo duduway already waan ka bixinayaa grillka la yaabin inaan la kalin gareeyo u baahan yahay marka waa u soo duduway hamburgerkooda ay kuli banaanka iskaaga ciyaarayeen wili dabkiyaano iska daaran ما شاء الله ninkeyga ilaahay khayr ha sii marka of yahay uu jecel yahay inuu dab noo daaro because ani
I don't know waqti ma u haynin mise waa ka cabsoonaa ma aqaan ilmaha iyo dabka iyo waan iska baqaa kisto marka banaanka iskaaga baashaalna habeenkaas haweenin ninkeyga u shaqeynayna waxaan jecelnaa banaanka inaan iskaaga baashaalna ilmaha hadda iskool wuu u xiran yahay alxamdulilah marka cabaar kadib ay soo xaroonayaan meeshaan waxaan ku hayaa mushroomska waa jecelnaa aniga ninkeyga gabadheeda Safiyo sometimes waa cuntaa laakiin most of the time cunta mushroomska waan karinayaa jileecan ka dhigaya hamburgerkeena waxaan jecelnaa inaan mushrooms oo karsan aan ku dhex darsano maasha Allah intii taqaano way taqaanaa marka mushroomka leysaan u karinayaa wax yar la cusbo iyo waxaasna ku daraa intan friesken weli wuu noo karayaa jeedin soo maasha Allah soo ku soo baxay malayn kartid maasha Allah macaan oo ilmaha way ka dhargeen inkastoo hadhow gadaal wax igu gubta ama uu noqday say tahay ma aqaan waay waan ku celiyay mushroomska inta ku karsaneynaa mushroomka markii noo kar kadib ilmaha way soo xaroonayaan kadib waa la casheynaa insha Allah marka waa tan cashadeena quruxda badneed fries ka jeedin kastoo yar madowaaday meeshaas fries ku haysanaa hamburger ilmahayga jeceliin hamburger aan u sameeyay iyo rootigiisa maasha Allah ilmaha waxaan yaalaha iska jeceliin bariis iyo pasta way ka daalayaan mushroomkina waa kaas aan soo kariyay inta waxaan ku haysanaa yaanyo basal jalapenos asalaatada gadaalaan ka soo bixiyay markii koowaan ilooba iyo cheese-ka waa kaasa hadday rabaan barbecue hadday rabaan ketchup ay ku darsanayaan rootigooda waa kaas maasha Allah waa casho yaroo iska fududo ilmahana way iska jecelyihiin qashin hadda kulligood banaanka way ka soo xaroodeen meeshaana casho lagu diyaarinayaa wiilkeyga Liam waa kaasa wiilkeyga Cabdulaahi gabadheeda gadaalay joogtaa qof walba waxaan jeclahay inaan dhahno cashadiina diyaarsado labada yaryarka mar walba ani mise ninkii qofba u diyaariya laakiin kuwa waaweynka mar walba waxaan jeclahay inay gacantooda wax ku gurtaan inta qiyaastooda ee cunaanay Safiya waa taasaa Safiya hamburgerka aad u jeceshahay wiilkeyga waa kaas hadda ayka waa la wada fadhiisanaa maasha Allah waa iska wada fadhiisanaa waa isla wada casheenaas maadaama markii ninkeyga guriga jooga markuu maqan yahayna waa ani ilmaha leh waaye marka yaa waa kaasaan cashadeena qof walba cashadiisa guranaa waa la wada fadhiisanaa waa la iska wada casheenaa alxamdulilah ilaahay awlaada hanoo dhaaf intii haysan ilaahay ha siiyo marka yaa gadaalay ka hadlooyiin elyaanina waa taasaa gabartay mjeda se maasha Allah way jeceshahay hamburgerka ilmaha waxyaalahan waa la iskaaga sameeyaa intaa banaanka soo gadi lahayd oo waqtigii kugu dhamaan lahaay mise oo lacag leh kaa qasaari lahayd gurigaaba ugu sameyn kartaa wax shay qurux badan oo macaan maasha Allah haddana waan fadhiisaneynaa maasha Allah waa wada casheeneynaa kulligeena waa iska sheekeysanaa marka la casheenayo sheekada waa iska fiicantaa ilmaha wallahi haddaa ka dhageysa sheekooyin khatar ay kuu sheegayaan marka meeshaana kulligeena ku wada casheeneynaa alxamdulilah way fiicantahay inaa la isku imaado end of the day la sheekeysto waan boobsiinaa video because waqti badan marab inuu video dhan qaato meeshaan wiilkeyga marab inuu wax dhan barooweeyo meeshaan ku qosqosleena wuxuu necab yahay kajab iyo waxaasna wuu iska necab yahay maasha Allah marka hadda waa kana hadda jikadii aan kusoo noqday wixii oo alaab ahayd iyo waxaasa iska kalin gareynayaa inkastoo wiilasha ay caawiyeen maasha Allah ay gabadha baa caawiyeen macallinkeyga waxa hawsha waa isla wada qabanaa gurigan hadii la cashay qof walba dhinaciisa ka qabanaa because hadii la fadhiisto markii la cashay hadii hore laga fadhiisto waxa waaye ma la soo kacay mana la sameynayo guriga kastoo qabow baan waxaan jeclaa jacketkeyga mise hori inaan iskaaga joogo dhar iskama bedelin weli hadda kadib leen dhar iska bedelaa insha Allah meesha saasaan u kalin gareynaa waxyaalaha dhan waxaan jeclaa bleach inaan ku wada tirtiro sababtoo bleachka aad u fiican yahay meesha ninkay ila hadlayo hadalka dhageysanayo waa la sheekeysanaa bleachka waxa waa germska dhan uu dilaya habeenkii marka ugu dambeysa bleachka si fiican uu kalin gareeyaa marka alaabtaasna hadhow la xaleynaa meeshaan hadda waxaan kalin gareynayaa miiska weyn Safiya meeshaas aabeeda u sheekeynaysa sheeko iyada maasha Allah way iska sheeko badan tahay markii hool lahaayo iska sheekeynaya anuu iska dhageystaa badanaa miiska iyo waxyaalahaas iyada ay tirtirta maanta hool badan maba oolin banaa iska tirtiray bariijka saas ku siiyay meeshaan ay Safiya sheeko iska haysaa maasha Allah marka asxaabteeda waa kaasaa
kusoo dhawaada insha allah videoyaal badan waa noo soo sameynaa hadduu ilaah yiraahdo oo ku saabsan tii subaxdii tan habeenka taa like si fiican kulli ma soo sameyn routiinka dhan because waa ogtihiin ilmaha iska buuq badan yihiin laakiin waa kana saanaa sameynaa habeenkii markii la casheeyo jikada iska hagaajiyo wax dhan iska nadiifi maasha allah waxaan jeclahay inaan waxa ku daaro guriga catar iyo waxaa safiy meeshan sheekeynayso arag maxay ka sheekeynaysaa safiya tinteeda hadda soo baxaysaa maasha allah ayaantii laga soo jaray camal ma hadda waa kana jikada waan iska soo dhameeyay hoosheeda meeshaan iska fadhiyaa waxaa sameynaya hadda flowerska ninkeyga ii keenay maalintii oo anniversarygeena maasha allah uuba dhimanayaa isbuuca laga joogaa hadda always ani waxaan jeclaa luwaanta aadan u jeclaa saliidda hadda aan haysto saliidda luwaanta laga sameeyey waay ilmahan way uroon tahay luwaanta ani ahaanteeda adi haddii aan luwaanta jeclaan qof walba different waaye laakiin ani luwaanta aadan u jeclaa habeenkii luwaanta u daaraa mise waxaan u daaraa saliidaha oo hurdada mise saliidaha kaamka dhigaysaan u daaraa ilmaha aaday u jecel yihiin ayakana marka hadda saliidiyan usoo daaray fadhigaan keenay maasha allah waa u daaray waxaa ku dhahay carafta ma malin karta maskaxda dhanaa ku degaysa saliidda luwaanta aaday u fiicanta ani ahaanteeda waa jeclahay idinkaba aqaan asxaabay haddaa jeceshihiin marka saas usoo shiday hadda waxaa waaye waa kana gabadhii usoo qabeeyey musqushaa kasoo baxnay filina iska fiirsanaa ilmaha kulli way soo qabaysteen kulli bijaamaa la xirtay maasha allah nyaanyuurtay waa taasaa iyadan meeshaas iskaaga gareynaysaa marka waa wada fadhiisanaa habeenkii waxaan jeclahay 6 meesha lagu gaaro inaan wada fadhiisano tv aan wada fiirsano because maalintii dhan waxaa waa la kala mashquulsan yahay qofkii ninkeyga wuu shaqeeyaa aniga gurigii waxaan ka daba ordayaa marka habeenkii waxaan sameynaa iska fadhiisanaa hal movie aan ku tuuranaa isla wada qosolnaa as a family ahaan marka insha allah video haddaa ka hesheen make sure inaad suulka saartid oo share garaysid hadduu ilaah yaraado waxyaalo badan waa noo soo wadaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin supportka aana support garaysiin iliyaan hadda meeshaan tinta daay tinta ma u dawin waaba ka iloow hadda tinta u dawaayaa haddii tinta loo dawin habeenkii inteena seexan waxaa waaye subaxdii tintiya waxaa lasoo kacaa maasha allah meeshaan arag carabki ta taagaysaa ilyaana ala dhahaa gabadha maasha allah waay faraxley waa iida waa iska furfuran tahay ilmaha kale dhan iidaa ka furfuran arag way dhici lahayd meesha musqusha korkeedaan ku istaajiya haddii kale ma fadhinayso iga ordaysaa marka kadib aabahooda sheeg story u akhriyaa habeenkii waa kana meeshaan habeenkii storygooda loo akhrina ilmaha storyga aaday u jecelyihiin wayna fiican tahay habeenkii inaad la fadhiisatid story yar iskaaga akhrisid sababtoo maskaxda u degays gabardhay hadda way daalantahay wiilkii wuxuu jecelyahay inuu habeenkii intuu seexanin buug iska fiirsado buwaagta aaday u xiiseeya ilmaha ani buwaagta waxaan helaa friiga haddaa rabtid buwaagta friiga inaa heshid ee lasoo socodsii insha allah anaa ku siinaa ciwaankooda u buuxinaysaa friya lagu siinaa hadhoodii waa lagu soo diraa boostada lagu soo diraa bishii waxaa u malay 2 buug camal marka dharaa meeshaas yaala karaa naqda waa ogtihiin arag wiilkeyga wuxuu jecel inuu darbiga wax ku dhadhajiyo with tape sharootaa darbiga noogu dhadhajiyo dharkaas inaa la lalaabo waa insha allah marka kheyraa idin rajeeyay so maanta vlog meeshaas kusoo ekeenayna insha allah saas waay routiinkeena hadduu ilaah yiraahdo xiriis ilmaha tv la fiirsanaa waan soo qabaysana dharkaana iska bedelaa madaxana iska soo dhaqaa hadduu ilaah yiraahdo ilmaha tv la fiirsanaa soo aad iyo aad u mahadsantihiin I hope kulligiin inaa caafimaad wada qabtiin is ilaaliya meel alle meesha adduunka ka joogtiin waxaa cudurka wuu batay kor u kacay marka is ilaaliya meel alle meesha joogtiin ilaahay qof walba meeshuu joogo ilaahay ku wada xafido marka asxaabteeda kheyr iyo caafimaad idin rajeynaa insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin koomediyaasha macaanka badan ay soo qoraysiin make sure inaa isoo follow garaysid snapchat-keyga iyo tiktok hadduu ilaahay yiraahdo meeshaana video kusoo gabagabeynaa insha allah kheyr iyo caafimaad idin rajeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu